الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إلهي دنبينا ضعفو كي والدنا الله ضعف. مقعي waa Khadar Mawlid Ali Abu Bushra. waxaan halkan doonayaa inaan markaa waxaan kaliib ku duubo kaliibkaas oo aan ugu jawaabayo ninka waxa weyn magaalada Hargeysa sheegtay inuu dadka cilaajinayo magaciisana loo yaqaan Abdul Haq ninkaas oo wadaadka ama sheekha macallinka iyaga ah oo loo yaqaan markaa waxa weeyaan Barbaraawi markii uu markaa wax ka sheegayay ku soo daray hadalkiisa in ardayda sheekhu ay soo garaaceen طبعا sidoo sheekhu hadalka wadaadkaas u dhigay uguna soo hanjabeen inay dili doonaan oo markaa wadaadkuna soo amray inay dilaan afar qodob ama shan qodob ayaan ku soo khulaasayn doonaa insha Allah taas oo markaa keentay inay dad markaa waxaan odayaala ay qaarkood markaa madax dhaqameed yihiin oo markaa wax weyn qaab markaa wax weeyaan qaldan ay u hadleen ama wax u fahansiiyay bal waxaan insha Allah ka hadli doonaa iyadoo walaalaha kalena iga dambeyn doonaan in aan markaa wax weyn soo khulaaseeyo waxa sheekhaas uu ardayda oo annaga ah oo markaa ardayda anagu metelino afkii ardayda anoo ku hadlaya iyo sheekhaba wixii eedan noo soo jeediyay inaan markaas ka bari yeelno qodobka koowaad ardayda sheekhu inay soo garaaceen goor habeena lambar qarsoona laga soo garaacay ardayduna ay yiraahdeen sheekh ayaga ayaa yiri markaa waxa weeyaan ninka soo dila oo markaa ikhtiyaal ku dila sida waxa luqada carabiga loo yaqaan ama qarsoodi 24 saacadood gudahooda dad magaalada kaga bixi weydana waan ku dilaynaa hadalka caynkaas iyo dhibaatada uu leeyahay iyo waxa sheekh ayagu ka aaminsan yahay iyo waxa anagu aanu ka aaminsanahay intaas ayaan doonayaa inaan insha Allah wax ka iraado qodobka koobaad waxa laga codsanayaa wadaadka loo yaqaan Abdul Haq telefoonka uu sheegay uu leeyahay waa laga soo garaacay waa in la daba galaa oo aan sidaa lagaga harin arrimo jira awgeed waxaan looga haraynin dhowr qodob laba saddex qodob waa qodobka koowaad sheekhan isaga laftiisa wadaadkan Abdul Haq tii amnigiisaba khalkhal galayba oo waxay yiraahdeen hadii waxa weeyaan waan ku dilaynaa waa qodobka labaad ee kale si allaba badan hadii maanta wax ku dhacaan waxa laga yaabaa dad badan inay moodaan macallinka iyaga ama sheekhiga Barbaraawi inuu ka dambeeyay berina uu ka yaho calaamad tusaaya oo ummaduna ogtay inuu sheekhigu beri kaga yahay ayaan waxa weyn halka soo bandhigi doonaa wuxuu yahay markaa qodobka koobaad hay'adaha amniga ka codsanaynaa inay markaa waxa weeyaan sheekha hadalka uu yiri inaan laga harin telefoonka in la tabagalo telefoonka marka la soo helo cidda uu falka ku kacday wadaadka uu hanjabtay ciday doonto ha noqoto annaga bari baan kana ardayda ma noqon karo qof wax nala dhigtayna ma noqon karo qofka caynkaas in talaabo sharciga waafaqsan laga qaado waa qodobka labaad hadii telefoonka sheekhu sheegaya been noqdo wadaadka Abdul Haq uu waa la soo garaacay telefoonkaas haduu been noqdo oo la waayo cid soo garaacday isaga wadaadka Abdul Haq ee loo yaqaan wadaadka cilaajka dadka biyaha ku casharka ku shushuba in markaa waxa weey isaga talaabo sharciga waafaqsan laga qaado hadalka markaa uu sheegay in lagu tilmaamo inuu been abuur yahay arrin labaad ba meesha saddexaad ba ku jirto de sheekhu Sheekh Barbaraawi Abdul Hasan Haashi Barbaraawi waa culimada waaweyn wadanka la yaqaano dal iyo dibadba wala dhageystaan dadku way wada og yihiin sharaftiisa iyo cirdigiisa waxa wax yeelayaan la dhamaanta Barbaraawi ardadiisa amray inay dad nin wadaado meel dad ku dadaweynaya inay soo dilaan markaa sharafta sheekh iyadoo la ilaaliyo dawladaha hay'adaha markaa amniga dawladda iyo shirkadaha isgaarsiinta waxaan ka codsanaynaa inaan lambarka uu ninkaasi sheegay laga harin laba mid bay noqon doontaa markaa in sheekha markaa raali gelin la siiyo cid kale wixii noqoto oo ardayda iyada anaguna qaar aan naga tirsanayno bari aanu kanay ay noqdaan iyo wadaadka Abdul Haq inuu been sheegay cid bas oo garaacin labada arrimood baa ka soo baxaya labaduba sheekha bari u yihiin qodobka markaa waxa weeyaan labaad ee waxa weyn wadaadku uu isticmaalay waxa kamid ah kicinta reera iyo markaa waxa loo yaqaan markaa beelaha dega Soomaaliland
in uu markaa in badan isagoo masaa'il sharciya wadaadku dee lagu haystay inuu beelihii qaar dee uu markaa qaab qabyaaladeed baashii u dhigay taasina shareecada dee halkii ka taagantay waa la ogyahay oo dee nabigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu lahaa markuu ka hadlayay qabyaalada dacwaha fa ina muntina iskaga taga qabyaaladu waa qarmuuna way uraysaaye dee nin la dadka waxaa ku daweynayaa shareecada oo qur-aan baan ku akrinayaa inuu isticmaalo oo uu yidhaahdo reer hebel baana qoladana carruurtaydu ta ama qolada dhashay sheekuba horena wuu u sheegay cid uu gaaro oo sheekh berberaawi ujeedina ma jirto waana la ogi labada kilibee sheekh uu ka duubayna way duubayiin waa la hayaayo ciddii u baahanba waa la tusi doonaa shacab iyo dowladba inuu markaa qaab markaa qabyaalad oo kale ah oo macana reer hebela oo de wixii aynu waxa weeyaan beri hore aynu somalilan ay markaa waxweyn ka tagtaya in qof shareecada u nisbo sheeganaya uu qaabkaasoo kale u hadlaa waa waxaa looga damqado sheekhana ceebay tacaalku ee waxaan leenahay cabdulxaqow war bal qodobkaa dee qur-aan bay taagnayd iyo bahashu dad cashar lagu tufaye war bal cabdulxaqow qodobkaa ku noqaan leenahay malaha halkaasi way ku yar hoos martay qodobka saddexaad wadaadku cabdulxaq loo yaqaano waxaynu hadaladiisa kilibyada uu soo duubay waxaanu ku aragnay intaasoo jeer haddii loo baahday caddaynteedana aynu keeni doonaa hadallo beena oo markaa cad oo waadixa qofkuna waxaa muhiima sheekh fulaan iyo sheekh calaantoona dhinaca kuu geli maayaane inuu qofku markaa waxa weeyaan aakhiradiisa u tugo waxaa ka mida inuu yidhi sheekh berberaawi baa yidhi waa sixiroole saaxirkana waa la dilaa labada kilibee sheekh berberaawi su-aalaha lagu weydiiyey ee duuban ee whatsappyada ku jira cid waliba haysa culimo iyo caamaba ee la wada dhagaystay ee sheekhu mid ka mida uu 17 mukhaalafo oo sharciga uu ku khilaafay uu ku sheegayo sheekhu mar qura ma odhan ninkaas waa saaxir waa la sheegay wadaadada qaar kale oo radiyay oo sayri laakiin isagu sheekha maanta uu haystaa waa berberaawi kuwi kale ma haystee sheekha uu haystee cabdalla berberaawi mar qura ma odhan ninkan waxa weeyaan waa ayn ninkan waxa weeyaan waa sixroole waxaan u baahanay cabdulxaqow hadalku ileen maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin aalada ayaa jira hadalkii waa la duubaa bal halku cabdalla berberaawi ku yidhi waa sixroole iyadoo duubana ama dhagaysiya ama maqala allaha ku barakeeya bal inaad dadka tusto ayaan markaa waxa weeyaan iyadana kaa codsanaynaa waana qodob aada iyo aada runtii u muhiima qodobka waxa weeyaan kale wuxuu yahay waxaan u jeedinayaa qolyahan odayaasha ay hadlayay ee isaga ninka cabdixaq ladhaa difaacayay ayaan iyaga u jawaabaya waxaan leey waad mahadsantihiin baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu mid markaa waxa faasiqa warkiisu idin yimaado baara dee nimankii meeshaan daawaday hadlayay niman waaweyn oo culimo qaar culimo dee saygii culimada leh na way ka muuqdeen niman odayaal dhaqameed u eegna way ka muuqdeen niman akhyaarina way ka muuqdeen waxaan markaa waxbaan idinka codsanayaa su-aal baan ayaa idin seegtay dee markii arrintu caynkaa tahay halka qodob idin seegay wuxuu ahaa wadaadka cabdulxaq siduu idiin sheegay wuxuu ku telefoon baa layga soo garaacay waa telefoon qarsoon horta waa degdegteena shaydaanka iska naara qodobka ku degdegteena wuxuu yahay waxay ahayd markuu wadaadku idinku yidhi waa laysoo garaaco telefoon qarsoon baa layga soo garaacay hal qodob baa idin eekaa ina markaba hay-adda amniga ila ninka waa la dili karaayo cid kalaabay wax ka gaari karaane hay-adaha amniga iyo shirkadaha inta u tagtaa inaad tirahdaan waar balliyo telefoonkaa ninkaa wadaadkaa laga soo garaacay waar bal noo baara oo haddii waxa weeyaan qofka telefoonkaasi ta ardaydii berberaawi yahay ama uu berberaawi soo diray tallaabo sharciga waafaqsan nooga qaada haddii aanay ahaynoo cid sheekha ceebaynaysa ay tahay ama cid kale soo diratayna dee inaydaan wadaadka iyo sheekha usoo jawaabine abartaa markaa ku joojisaan idinka qodobkaasa idin sheegay qodobka kaga baxaya wuxuu yahay cabdulxaqow masaa'il sharciyaa lagugu haystaa oo mukhaalafo ah marka sharci lagugu qabsadana reer qurac iyo reer qansax iyo reer somalilan iyo reer puntland iyo reer muqdisho toona sharciguma yaqaano waa adiga le dadka qur-aan baa ku daweynayaa qur-aanka ilaahay adigoo le waan ku daweynaya inaad maanta reer iyo qabyaalada isticmaashaa waa ceebay tacaal waxaan kuu sheegaya masaa-isha sharciga ee lagugu haysto waar daliil baad u baahan tahay qoladana carruurtayda dhashay iyo qoladana ay dhashay
dee looma baahna reereysma hayaan masaa'il sharciya weeyaan sharciga ilaahay waxaad kaga jawaabayso oo burhaan leh ayaa loo baahan yahay waxaanan markaa waxa weeyaan ka codsanayaan kaga baxaya masaa-isha aad ku tagsantay ee aada aaminsantay waxa weeyaan wax daliilo oo aad u haysataa ma jiro shuruudu ruqya waxa weeyaan kuma dhaqantid oo waa la wada arko kilibyadaada way duuban yihiin waxa weeyaan taabashada dumarka axaadiista lagu daliiliyena meel kalaad marisay lajnatu daa'ima culimada fitwada soo saartay lajnatu daa'ima loo yaqaanaa su-aal la weydiiyo waxa lagu uri ka warrama qofka dumarkaa marka la daweynayo ee lagu akrinayo markaa waxa weeyaan qur-aanka wax lamsiya miyay wax taabasho miyay u baahantahay lajnatu daa'ima waxay ku jawaabeen xafidahumullah qofka dumarkaa marka qur-aan lagu akrinayo in mara laga qaado iyo in la taabto toona uma banaaneen qur-aankiiyo adkaarta waa in lagu akriyo waxaa kaloo ay yidhaahdeen farqi baa udhexeeyana dhakhtarka iyo markaa ruqyada dhakhtarku waxaa laga yaaba xanuunada qaar inaanu ogaan karin ilaa uu taabto laakiin qur-aan akhrisku isagu waxa weeyaan taabasho ma baana qofkii waa lagu tufayaa qur-aankii iyo adkaartii axaadiistii nebiga wixii sunnaa kusoo arooray markaa waxaan sheegayan kaga baxaya masaa'il sharciyay taagantay inta aan sheegayna waxaan ka codsana dhammaan dadka walaalaha muslimiinta dhegaysta inay nala baadhaan waxaan kaga baxaya aan kusoo gabagabaynaya inay iftiraa iyo been ay tay waxa uu cabdulxaq usoo jeediyay ardayda sheekh berberaawi oo anigu afkooda aan ku hadlayo iyo sheekhaba kiliibkan waxaanu ku duubaynaa anagoo ardayda sheekh cabdallah xasan xaashi alberberaawi xafidahullah arrin sheekha lagu iftirooday oo ninka la yidhaahdo wadaadka cabdilxaq la yidhaahdo uu tilmaamay oo uu sheegay arrinta ku saabsan in ardaydiisu kuwo ka mid ay yidhaahdeen intay isla soo hadleen cabdilxaq wadaadka la yidhaahdo waanu ku dilaynaa goor habeen oo saqdhaxa ah sida walaalkeen uu sheegay khadar mawliid arrintaas waxay baahantay bayiina oo shirkadaha isgaadhsiinta iyo telefoonada in dib loogu noqdo ayaa muhiim waxaa loo baahan wadaadka looga baahanyay in xujo uu keeno iyo bayina walihaada baa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay haddii uu idin yimaado mid faasiqa hubsada warkiisa fatabayanuu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay low yucda annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmin wa dimaa'ahum walaakina albayinatu cala almuddaci haddii dadka la siin lahaa waxay sheeganayaan dad baa sheegan lahaa waxa weeyaan dad xoolahooda iyo dhiigooda laakiin qofka waxaa laga doonayaa bayina iyo cadday baa qofka laga doonaya bayinadu waxay tahay inuu qofku la yimaado markhaati inuu la yimaado lianna asalku waa khilaafu lasli wey oo sheekha xafidahu llahu tacaala waxa u asalay in baraa'adiisu ay tahay baraa'atun dimiya waxaa laga doonaya markaa sheekha cabdulxaq inuu keeno xujo iyo arrin cad oo arrinta noocaasi uu ku caddaynayo ayaa waxa wey lagaga fadhiya arrinta kale waxay tahay walaalayaal sheekha waxa uu ku sameeyey iftiraa sheekha waxa uu ku yidhi sheekhu been buu sheegay waana beenaale in qof muslima ama sheekh ka mida mashaayikhda waddanka lagu tilmaamay inuu yahay qof beenaalaa waa arrin aan wanaagsanaa ma sax aan ahayn walihaada waxaa la sheegay imaamu shaafici raximahullah nin baa u yimi waxa uu ku yidhi yaa imaam ninbaa waxa uu kaa sheegay arrin waxa uu ku yidhi haddii arrinkaasi sax uu yahay waa namiimi haddii arrinkaasi qalad uu yahayna waa kadaab waana beenaale sidaa dadku ay wadaagsoon yihiin sheekh cabdillaahi xasan xaashi berberaawi xafidahullah badana waxa uu ka duulaa axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aayaadka qur-aanka waxa uu ka duulaa xadiidka rasuulku uhi man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisanih fain lam yastadic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan qofka muslimkaa in wax laga sheego cirdigiisa iyo sharaftiisana waa arrin aan wanaagsanayn inaasan kusoo kobina aada baad mahadsantihiin walaalaha ciddii duubtay iyo cidda waxaan dhegeysanaysaba fajazakum allahu khayra waxsan allahu ilaykum baarak allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu